taabagelinta nidaamka dowladnimadu waa mid bulshada muhiim u ah si loo helo hirgelinta adeegyada kala duwan ee aasaaska nolosha. wasaaradda maaliyaddu dowladda waxay u qaabilsan tahay dakhli soo saar si dowladdu u gudato waajibaadkeeda shaqo ee dalka iyo dadka. kulan ay wada yeesheen wasaaradda maaliyadda Puntland, wasaaradda howlaha guud, guriyeynta iyo gaadiidka iyo taliska guud ee ciidanka booliska ujeedkiisuna ahaa sidii loo xoojin lahaa nidaamka wada shaqaynta ee taliska booliska, hay-adaha dowladda iyo kor u qaadista tayada ciidanka ilaalada canshuuraha si ay ugu yeeshaan awood ilaalineed iyo baarista xadgudubyada loo geysto sharciyada maaliyadda. sumada gaarigu waa mid astaan u ah nidaamka dowladnimada, balse bulshada qaybo ka mid ah ayaa wax ka bedel sameeyey sida ay soo ogaadeen hay-adaha qaabilsan gaadiidka. horta hal inay aqoonsadaan baa la rabaa. taargada dowlad baa loo meesha ku xiratay, saasna u samaysatay. qofka gaariga leh taargada waxba kuma samayn karo, waa wax reeban weeye. taargana adiga halkaas ay ku xirantahay, dowlad baa ku xiratay, waxay ugu xiratay gaariga inay ku aqoonsato. saasayna ugu tala gashay inaad xabadna cadayso, xabadna madoobayso, ranji kale inaad mariso. waxaas waa wax ka reeban, waana la qabanayaa ciddii lagu helo. hore waxaa u socday ololaha canshuuraha gaadiidka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntlandna ka hirgelisay gobolada gulo wax ku olahana laga gaaray. sanada 2023 wasaaradda maaliyadda Puntland ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad ayaa soo bandhigtay fursad muhiim u ah bulshada gaadiidleyda ee canshuuraha badan lagu lahaa. wasaaradda maaliyaddu waxay ku wargelinaysaa dhammaan gaadiidleyda lagu leeyahay canshuurta sanadkii hore 2022 iyo ka badanba inay haystaan fursad looga dhaafayo canshuurtii hore ee gaadiidka. canshuurta inta u dhaxaysa January 2023 ilaa 30 Maarso 2023. wasaaradda maaliyaddu horey dakhli ayaa uga soo xaroon jiray bedelidda milkiyadda lahaanshaha gaadiidka, balse waa fursad kale oo bulshada dowladdu ugu faa'iideynayso muddo kooban magac bedelidda. waxaan dadka mujtamaca reer Puntland ugu baaqaynaa in gaadiidka uu dadku ay wataan haddii aanay magacooda ku qornayn in ay bedeshaan magacooda oo ay tahay free, lacag lagama rabo. waxaa only samaysaa tag wasaaradda howlaha guud, magacaaga bedelo gaadhiga, wax lacagana cidi kaama rabto. wixii intaa ka dambeeyay qofka de hawsha u hoggaansamay wada jaaniska ka faa'iideysan waayo wuxuu ahaanayaa loo aqoonsanayaa qof ku talagalay inuu howlaha amniga xagiisa caqabad ku yahay. hay-adaha dowladdu baaritaan ay sameeyeen waxay ku ogaadeen inay jiraan gaadiid si gaar ah loo leeyahay si ay canshuurta uga dhuntaan wadooyin khaldanna u maray dowladduna il gaara ku hayso. baabuurta la cashuurayo oo taksiga qaybtood sheeganayaanin baabuurka wixii shati leh oo taksi leh oo dowladda hoose ka diiwaan gashan oo cashuurtii dowladda hoose bixiyey waa taksi, waa loo aqoonsan yahay. laakiin baabuurta kale oo barayfidka ah waa la cashuurayaa, cashuurtii baa toos looga qaadaya. ma aha inay arrintaasi isku milanto. dad baabuur barayfidii lehina inuu yiraahdo waa taksi waa wax reeban. yani marka si caadi ah isaga soco inuu meesha maaragtay canshuurta gaadiidkaagana si wanaagsan u wado, ganacsigaagana si wanaagsan u wado. anna waxaan raalli ka nahay in ganacsigu ku kobco si adiguna aad u noqotid qof macaashay dawladuna canshuurta ay u qaado. laakiin haddii aad adigu ku fikirtid in canshuurta dawladda la dhuumatid wax faa'iido ka gaarmaysid, marka waxa weeye heshiis bulsho way canshuurta sharaftir dalka waay. adiga marka hadda istiraad la dhuumo dambiilaad xataa ganacsiga wax ka faa'iideyso. sumada gaarigu waa mid muhiim u ah dhanka amniga, waxaana jira gaadiid ay wataan ciidamada dowladduna go'aan ka soo saartay sida ay shaaciyeen madaxda wasaaradda howlaha guud, taliska booliskuna hirgelintiisa awaamir duldhigay. gaadiidka dowladda waxaa la rabaa taargadiisii inuu wato, loogu talagalay oo ga'daada ahayd. ciddii furta oo taargala'aan lagu helo dee waa gaari aan sharci lahayn, cid loo aqoonsan yahay ma jirto. sharcigaa la horgeynaya, ciidamada amnigana kullu waa la faray amarkaas. waxa weeye annaga talis ahaan maanta taliyaha ciidanka booliiska aan ahay waa igu waajib inaan ku xiro gaarigayga oo inta iga hooseysana ay igu dayato. marka hadda waxa ku xiran waad aragteen 302 301 waa taliyaha ciidanka waa noogu dhigsantahay
marka guud ahaanna inta kaleetana saasoo kaleeto ayay ugu waajibaysaa inay ku wada dhigsadaan waana lagu kontroolaya cid walbaba saxitaanka annaga naga bilaabanaya guud ahaan inta hoos loo dhaadhicinaya u hoggaansamidda awaamirta nidaamka dowladnimo waa horumarka dalka iyo dadweynaha Puntland waxaa cusub mudan xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waxaa ka go'an hirgelinta nidaamka dowladnimo ee Puntland inta si dawladeenu barwaaqo noo horseeday wallahu watahayaan sidii wataha u guurtay aysanaysa meesha adduunyadu horay u gaartay